qof walba meeshan jooga wuu ismuujinayaa mid waxay leedahay xaaskiisaan ahay midna waxay leedahay hooyadii ayaan oo waaya anagu maxaan nahnay dee waan ku baryayaa isdeji horta arrintan neefaa marka hore meel aynu iska saarno yagmuur macaan badanay adiga iska bax sababna aniga halkan jooga labadeena inaa isla daalna maaha maya yaqay kaliga kaama tagaayo waan kula joogaya garabkaagana waan taagnaanayaa may saaxiib adiga sidaas inaa u fikirta ma aha albi waad ogtaa xaalad xun ayuu ku jiraa baryana inuu meeshaan joogo waa doctoorka sheegayna qof aniga ahayn inuu la joogo maaha hay kadibna saaxiib adiga waa ina baxda oo hayaal u tagtaa hayaal maxaa ka halaaba eeyadeeda hayso ma aniga kula joogaa waan ogaha aniga midaas beri iskuulka ayaa leedahay haddii aad adiga u tagtana waan degayaa adigana yagmuur waan ku baryaa okay waayahay haddii ay wax dhacaan taleefon iga soo wac balan waa macaanto okay macaanteedii soo bax anigaa ku kaxeenaya yagmuur nakeen may tagsiyaan raacayaa tagsi sidee yeelaysaa anigaaba joogay soo baxanaa ku kaxeenaya okay hade xabiibti waan sii baxayaa sidoo kale albina caafimaad ayaan u rajeynaa insha allah yagmuur aadaad u mahadsan tahay waan isoo waceenaa okay anaa geenaya waana soo laabanaya soo bax bye bye مدن قاسم قلبي حالتي noogu waran waraa rabnaa qalbi hadda wuu fiican yahay caafimaadkiisuna waa okay waan u nasanayaa waa intaas kaliya laakiin yaa xabadda ku dhifto uu soo weeraray yaase ka dambeeyay arrinkan arrintaa booliska shaqo kule iyaga inaad weydiisaan baan rajaynayaa mahadsanidin laakiin mudane kale su'aal ay noo hartay inaan ku weydiina rabnaa mudane waa waray maruseelana soo socota maruseelan kale in caafimaad u rajeynay hadduu ilaah yiraahdo waad mahadsantihiin run ahaantii wiilkayga hadda waa uu roon yahay qalinkana waa lagu guulaysta wuu soo waxaan arkaa reerka rom inay garabkaaga taagan yihiin adigii mudane qaasim labadeenna ujeeddo kale nagama dhexaysa wiilkeenna caafimaadkiisa ayaa noo muhiima wax kale ma jiran waad mahadsantihiin maruseelan kale yaa wax yar ay noo haray maruseelan halo farxad adiga guriga miyaad joogtaana gurigaan jooga oo suldaana ayaan wac taleefonka iga qaban weysay waan walwale maya labadooda hurdooyin waan fahmay hayaal xaaladeedu waa sideena barbalem maya barbalem ma jira meeshaan labadooda xoogaa kor way wada ciyaarayeen haddana way seexdeen waayahay britola ayaan soo wici doonaa markii ayada iskuulka aadayso waaya waan ogahay intaada imaanin ka hor anigaa iskuulka geynaya waayahay xaaladda ila soo socodsiiya beella waaye mudan albi iga waran soo ma fiicna wuu fiican yahay hadda operationkuu ka soo baxay waayahay caafimaadaan u rajeynaa haween wanaagsan haween lamid ah hay yagmuur ma fiican tahay beerkiioo wax meeshaan ka dhacay ma ii sharaxi kartaa adoo raaliya maxaan kuu sharaxo aad rabtaa inaad ogaato waxaan rabaa inaan ogaado sababta neefaa dadkaan oo dhan ee waxaas ugu samaynayaan dadku waxay u maleeyaan korhaan albi xabadda inuu isaga ku dhuftay neefa iyo korhaan cadaawad horaa ka dhacayso ma sida darteed in loo soo weeraray u maleeyaa yaaqee taas ma ahan aniga midaan ku weydiinaya wax kale ayaan ka wadaa micnaheega waxaan ula jeedaa arooskan lama filaanka ee neefa iyo albi ka dhex dhacay inaan ogaado ayaan u baahanahay aniga saaxiibadeedaan ahay waxba iima aysan sheegin dadkaan oo dhan ayada ayaa la dagaalayaan waxay ku samaynayaan waan arkaa haddana waxba kama dhihi karo ilaa iyo hadda waxaan fahmooy malaha waa la rabaa laga yaabay xabaddaas in lagu ridi rabo neefa sidaas darteedna albi ay ugu dhacday teeda kale waxaa laga yaabay xitaa aabiis inuu neefa u soo adeegsado dad sidaasna oo neefa lagu soo weeraray kadibna xabadda uu albi isku dhigay maya sidaas maaha yaaqe waa tahay maxay kaloo noqon kartaa aniga waxaan la yaabanahay neefa arooskan ee gashay dhibaatada intaan leeg oo soo waa sababta orhaana u soo weeraray albi maxay tahay maxaa ka dhexe yaaqe aniga waa la rabaa intaa kadib hay barki adaa ii soo haray sidan haddii aad iga aamusnato misnaa wax ii sheegi weys waxaad ogaataa cimrigayga inta ka dhiman sidaan lee u kala aamusnaan ilaa labadeena hadalhe maxaa la aamusan tahay waayahay hadlin gaariga halkan iigu jooji maya yagmuur naga dhaaf maxaa ku hadlaysaa ii jooji aan ku dhaaf bartaanan kaaga tegaaya yagmuur waa ku baryaa guriga aan ku sii geeyay wax maqal uma baahni hadda kadibna looma baahna inaad iga walwasha aniga yagmuur
yarim mahşere kaldı. O bizim kavuşma. aniga garabkaaga ah inta aan ku garab taaganahayna cid dhibaato ku geysan karta ma jirto mana ogolaanayo inay waxyaalo ku soo gaaraan soo iguma kalsoonid haddana mararka qaar waa loo baahan yahay qalbiga iyo maskaxdaba in ay ku daalaan dhibka adiga dhayda kuma muuqda may adiga yah nolosheeda markaad ku soo biirayso waxay ahayd sida kuul kala daadsan oo kale kuulashaas adigaa dunu noqda markaad ku soo birto kadib nolosheedu waxay noqotay mid isku wada xiran adigaana kaaga mahad celinaya neefa neefa waa xaaskayga wax ma fahmaysaa waa xaaskayga waxaan ka cabsi qaba adiga in ay wax kugu dhacaan taas haddii ay dhici lahaydna nafteeda ma cafin lahayn beritaba waa maalin kale neva wax walba way hagaagi doonaan wax walba wax kaliya ii muhiimsan waxay tahay adiga inaad nooshahay oo ii caafimaad qabto waxaan kaaga mahad celinayaa inaadan noloshaan igu celileenin runtii waan jeclaan lahaa nolol tan ka duwan inaan labadayna ku wada noolaano balse waxay ahaatay ma og tahay adiga markii aad ii dhowda aniga karti inaan yeesho nolosheeda hal micno ayay lahayd hal sabab ayaana u noolaa waana gabadheeda balse hadda adigii gabadheeda oo nolosheeda ku midaysan ayaa farxaddii ah subax wanaagsan subax la mid ah bukaanka ma soo kacana maya ilaa hadda wuu jiifaa isaga laakiin xaaladiisa caadi waayo be mudane albi waan fiicanaha ma fiican tahana ma fiican tahay adiga caafimaad ayaan kuu rajaynayaa adigana qof nasiib la ayaa tahay xaaskaaga xaloo dhan way ku ag fadhida hal mar xitaa may kaa tegin goormay isbitaalka baxa ah taas aniga waxaan kaa dhihi kara ma laha waxay u muuqataa titoorka asaga inuu baaritaanka samaynayo laakiin mar haddii xabadda la iga saaray meeshan taasna titoorka ayaa kuu sheegaya caafimaad degdegna waan kuu rajaynayaa mahadsanid kalkaalis xaloo dhan maadan sahan soo maaha oo waxaad ka baqaysa inaan dhinto waxaad ku fikiraysa mar haddii aan dhinto adiga dhibaatooyin inay ku imaanayaan maxaa ila anoo kula socdaa lee dhaawacay sidoo kale nolosheeda markaad ku soo birtay dhibaatooyin fara badan ayaa anigay soo gaaray soo maaha sidaa darteed aad u fikiraysa neefa waa kula kaftamay macquul maaha adiga sidaasaa ku fikiraysa miyaana maxaan ku fikiraya dhibaato xad dhaafa aniga inaan ku geliyo waa waxaan dhici karin adiga ilaa heerkaasna dhibaato igu noqoto adiga mudane caafimaad degdeg aan ku rajaynayaa mahadsanid anfiri adiga xoogaa jaanis ma sii kartaana
suldaan iskuulka ma aadahayaalna waxaan rabaa inaan la hadlo taleefkii igu dhib haddee macquul taha barbalan ma laha aad hoolaha iska soo qabso anaa hayaa gabarta waaye hayaal taleefka ma iigu dhiibi kartaana hooyo gabadheeda hayaal sidee tahayna waa fiicana waxuna ma jiraan waaya gabadheed weli miya xanaaqsan tahayna maya hooyo maba awoodi inaan ku xanaaqsanana maaho inaan kuu sheegaan rabo laakiin labadeen waqti waaba isku heli weyn maaho waayahay gabadheeda hadda isdiyaara ayada ayaa iskuulka ku kaxaynayso anigana dib ayaan kaaga imaanayaa haya hooyo waa isdiyaarinayaa boorsadeedaan qaadana macsalaamaya ayay la halal bay qasalkii qasaleest gees dambeedkaa laga arkoya maayna ma ku fahmin maxaad ka wadaa maxaa waaye maadaama asbadbaadano asnooliya usigane oon ku barya hooy suldaana dadka tuuladaan jooga khumim kugu tilmaamin mahoo ku soo dhaweehaya markaan kursina waa lagu dhigahan ku dhaha fimil qurxanaad suubsaysaa wax ka halaabay male adna taadi waay waa heesha farxadda noloshaada le maahayno awalba hore le u soceysano taleefonka waa daminayaa haa dami saasaa kuura aad naftirkaa maalintaada waay farxadaada iska qaadaan ku dhihi laha kulley hadda waa keli kartaa marwo okaada maxaad samaynaysaana caadi waa soo qabsan karaa aniga ayaa kuu soo qabanaa adigina wax soo qabata lama baahno neebaa kaale soo fadhiisa please amay faamilkayga wax ku dhaheen adiga maxaad sidaas u leedahayna neefaa waa ku baryaa xaqiiqada ii sheeg waxaan ogahay inaysan sidaas kaaga aamusiin amay ku murjiyeen dhibaatooyin kale amay kuu geysteen ii sheeg maya marka hore ama qaldanaa markaas isku fikiraya maxaad ula jeedaana adi ma taqaanid sida been loo sheego idhigaysa aabbaha iyo hooyo turkaanba si fiican ayaanu garanayaa haddii ay ku dhaheen wax adiga ku dhibaa kolleyba aniga waan kaa raaligelinayaa xaggooda aniga uma xanaaqsani keliya waxaan dareemayaa adiga inay kuu walwalaayeen waa intaasoo keliya adigana aniga adiga ma ii walwalayni mi ah xaddaaf weliba maxaad booliska u sheegtayna qofka xabadda igu dhaftay inaanan arkin ayaanu sheegay laakiin adiga waxaad u sheegtay inaad ka shakisani karahaanaha soo maaha koleyba isaga markay igu waraysteen waxa uu sheegay in shaqaalihiisa ula jooga maalintaas kadibna way iska daayeen halkaas mar lemay waraysanayaan ayaga solon baanay baaritaan inay sameeyaan maxay u daayeenna neefaa xogaa waqti aan qaadanno sidee macnaha arrimaha aan dejinno ugu horeen wax walba aan xalino markay wax walba degaan kadib aan fikirno adiga deg deg saa'idaa kuugu furan aniga runtii waxa albi subax wanaagsan subax lamida titoore nasiib wanaag albi qaliinkaa waa luu guulaystay xabaddan lafkaa ma aysan jebin laakiin way kaa dhex baxday dhiig badanna waa uu kaa baxay goordhowna caafimaadaysaa hayo abba ma maqashaa titoorku waxa uu leeyahay xaaladaada caafimaad waa okay inaad sii walwashaan looma baahna hay titoore warqadii qor meeshaan waan ka baxayaa markay xageed u ordaysaa yaakhay ma la ogolaan kale midaas dhowr maalmood inaad joogtid ayaad ku khasban tahay naga daa titoore yaaqay dhowr maalmood waaba dhimanaya meeshan haddaan maalin kale kusii jira aniga waa ku baryahay fasax albi doctoorka hadalkiisa inaad maqasho isku daynankaygi mudan albi dhaawacaagu uu cusub yahay dhowr maalmoodna nool joogta ay u khasbantahay in lagu dhayo faashadooyinkan lagaa bedelo taas ayaa noo wanaagsan maya titoore macquul maaha taas yaaqay gurigaygan daawooyinka u qaadan karaa sidoo kale bataajooyinkan waa iska bedeli karaa haddii aad meeshan igu sii haynaysa inaad xirxirta la tegay runtii si kale kuma joogi kara doctore adigoo raalliya waxaan ku odhan lahaa mas-uuliyaddiisa aniga ayaa qaadaya doctoor wanaagsan iyo kalkaalisana
guriga ayaan ugu samaynayaa marka waxaan doonayaa inankayga inaan kaxaysto oo aan guriga geeyo ha ka warwarin baan kuhi wax dhibaatay adiga taa kaagama iman doonaan taas waxaa ka dhex maaqaan sidee macquul ku noqonaysaa sidaan hore kuugu sheegay saamayn iyo dhibaato toona kaagama iman doonto digtore aniga igu hadlee waayahay waraaqadihii lagu bixi lahaa ayaa idin soo diyaarinaya mahadsani digtore caafimaad ayaa kuu rajeynaya mahadsani digtore waanu kuu baqannay inankaygii iga raali dhaqo aabe maxaad iga raali gelinaysaana wax yaree adiga hadday ku soo gaadhaan dunidoo dhan inankaygii inaan u gubi kara moog tahayna waan idinka tegayaa haddii aad ii baahato iyo wax bannaankan joogaa albi qofka xabadda kugu dhuftay baad aragtayna may aabe neefaa waxay sheegtay koorhaan ninka la yidhaha magaciisa haa dabcan waan maqla aniga xitaa laakiin uma malaynaya inuu isagaa indhahana ma saarayso maaha aniga kambaniguna heshiis kula jiraa lacagna uu ka qaataa ma samayn kara marka ma oge anigu waxay ahaataba laakiin anigu ninkaa kalsooni kuma qabo abukaatayaasha iyo booliskuba way baadhayaan arrintaa goordhowna iyagaa soo caddayn doonaba sow maaha okay meeshaan waan ka bixinaa inankaygii albi tartiib maya tartiib dhakhtar gurigaan kuugu keenaya gurigaygaan ku geynaya halkaasaa lagugu daaweynaya digtor wanaagsan anaan kuu keenaya maya aabe ma aaday gurigaas maraba gurigaygaa raba inaan aada aniga wiilkaygii albi waa maxay waxaad ku hadlaysaa digtoorka wuxuu lahaa soomaad maqlayninna ha aabba waan maqlay kalkaalisiita toorba aniga guriga ugu yeeran kara soo maaha albi inankaygii yaan ku kala dhaaran naga dhaaf neva maxaa dhacayna waa bixinaa gurigaan aadaynaa alaabta meeshaan ii taalay waxaan leeyahay bisku aroori kartaa haa dabcan mahadsanid